kaamirada CCTV-ga waxaa ka muuqda nin dhoola cadeynaya oo muuqalaan wax yar oo cabsi leh soo galay gudaha wiishka wuxuuna eegay qof telefonkiisa ku mashquulsanaa. Fiican looma arki karo ninka kale balse wuxuu ku mashquulsanaa telefonkiisa. Marka uu ninkaani si gaar ah dhoola cadeeyay isagoo leh muuqaal aan caadi ahayn. Sida aad arki karto wuxuu watay dambiil rooti ah, boorso buluug ah iyo barkimooyin badan oo isdul sarsaaran. Dib markii uu xirmay albaabka wiishka ninkan dhoola cadeyntiisa ma uusan joojin. Dibna wuxuu noqday mid degan oo iska aamusay isagoo u muuqday qof fikirkiisa ku mashquulsan. Yacni qofka markuu meel fiiriyo oo fikiraya Soomaan sidaas oo kale ayuu u muuqday. Marka dibadda laga eegayo wax waliba waxay u ekaayeen wax caadi ah, mana jirin wax si fudud lagu ogaan karin. Waxa waqtigaas maskaxdiisa ka socday ninkaasi. Laakiin wiishkii ayaa mar kale furmay waxaana soo galay nin kale. Kii hore ayaa markaas ninkii cusbaa ugu dhoola cadeeyay si xoogan. Sababta aan dhoola cadeyntaas ugu tilmaamayo mid aan caadi ahayn ayaa ah in sida dad badan ay u arkeen kadib dhacdadii dilka aysan u ekaanin dhoola cadeyn caadi ah oo qof lagu salaamayo. Khafiif oo ah dhoola cadeyntaas waxay leeyahay mid dadka kale aan raax gelin karin. Cadeyntiisa ayaa waxay u muuqatay kuwa loo arko filmada cabsida leh. Qaabka uu dhoola cadeynayay waxay ahayd mid dadka qaar si weyn oo ka yaabisay. Oo ekeed mid laga soo qaatay filmada cabsida leh. Dadkii meesha joogay ay dhammaantood u muuqdeen kuwa si aan caadi ahayn dhoola cadeynaya. Sidaas ay maraysay xaaladda kadib Indonesia oo dhacdadan ka dhacday waxaa soo baxay war sheegaya in nin uu dilay haweeney. Intii ugu muhiimsaneed ee ay baariyaashu u baahnayeen waxay ahayd CCTV-ga wiishka ayaan hadda soo aragnay. Muuqaalkan ayaa si weyn uga caawiyay baaritaankiisa. Arrintan waxay iga dhigtay inaan isweydiiyo ma dhici karta inaan nolosheena mar un aragno ama agmarno qof wax xun sameeyay anagoo aan haddana waxba ka ogeyn arrintaasi. Ma aqaan haddii arrintan daraasada laga sameeyey laakiin aniga waxay ila tahay inay suurtagal tahay gaar ahaan qof safar badan sameeya. Waxaan la kulmaa dad badan oo kala duwan sidaas darteed waxaa dhici karta in aan mar un qof aan waxba ka ogeyn wixii uu sameeyey la kulmay ama xitaa u dhoola cadeeyay. Waxaa laga yaabaa inaan wax badan ka fikirayo laakiin sidaasi uma malaynayo. Muuqaalka CCTV-ga ninkaani wuxuu markaasiba ka soo baxay faldil ah. Kadib wuxuu dhibanihii ku riday dambiil kadibna meel ayuu ku qariyay jirkaas ayaan laga yaabaa inay sharaxdo sababta dhoola cadeyntiisa u ahayd mid aan caadi ahayn. Wuxuu isku dayay inuu iska dhigo qof caadi ah inkastoo xaaladdu aysan sidaas ahayn. Si kastaba qofka markuu eegayo si fudud uma malayn karo inuu dil geystay. Xitaa dhoola cadeyntiisa haddii ayaa badan tahay dadka qaar ayaa si dabiici ah u leh dhoola cadeyn aan caadi ahayn. Laakiin aan dib ugu noqono bilowgii dhacdadan laba nin ayaa gaari van ah ku marayay waddo ku taala Indonesia. Waxay ahayd habeen dambe markaasay ogaadeen in taayirka gaariga uu qabo cilad. Sidaas darteed ay dhinaca waddada u istaageen si ay u eegaan. Waxay ogaadeen in taayirka uu daloolay. Dhibaatadu waxay ahayd inaysan si fiican u aqoon sida loo bedelo. Kastoo ay haysteen taayir kale oo kayd ah. Waqtiga ayaa habeen ah waddadan waxay ahayd meel cidla ah. Taasi waxay meesha ka dhigtay jawi cabsi leh. Labada dhinac ee waddada waxaa ka jiray geedo mugdin waa uu ahaa laakiin waxay yiraahdeen si kastaba inaan taayirka bedelnaa ayaan dhaqso u samayno. Aan taayirka hagaajino gaariga dib ugu laabano kadibna meeshaan sida ugu dhaqsiya badan ugu taagno. Intay taayirka bedelayeen waxay meel u dhow ku arkeen boorso. Arrintaas ayaa xiis gelisay markaas waxay bilaabeen inay u dhawaadaan si ay u soo eegaan. Boorsadu waxay ahayd mid yar oo buluug ah waxayna taalay dhinaca waddada geedaha agtooda. Waxayna go'aansadeen inay waddada ka fogeeyaan si aysan gaadiidka ugu duldhicin. Markii ay boorsadii u dhawaadeen oo ay taabteen waxay dareemeen wax u eg gacmo, lugo iyo kabo. Markaas ayay ka shakiyeen in wax ku jira boorsada uu yahay qof. Way taabteen oo waxay dareemeen inuu ku jiro wax u eg jir bini'aadam. Markaas ayay xaqiijiyeen in waxa boorsada ku jira uu yahay qof. Waxa kale oo si cad uga soo baxay faraha lugaha boorsada taas ayaana markiiba u xaqiijisay inay tahay mid qof. Kaba soo qaad taayirka gaarigaaga ayaa wuxuu kaga daloolay waddo mugdi ah oo ay geedo ku hareeraysan yihiin. Isla xaaladaasi qofka si fudud ayuu ugu shakin karaa in si ulka ah loo joojiyay. Waxaa laga yaabaa inaad istiraado qof ayaa wax kuu maleegay. taayirkaagana si ulka ayaa loo daloolay si aad meeshaasi ugu xanibnaad. Mid khafiif oo aan haddii taayirku meel sidan oo kale ah lagu duleeliyo anigoo meyd u ag yaalo markiiba waxaan u malayn lahaa in la idabinayo. Runtii xaaladdu aad bay cabsi gelin u lahayd. Laakiin nasiib wanaag labadii ninba waxba ma waysan gaarin oo booliiska ayaa meeshii. Booliiska waxay qaadeen meydkii waxaana bilowday baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambeysay dilka. Waxaa la ogaaday in dhibanuhu ahayd haweeney 30 jir ah. Waxay wejiga ku lahayd dhaawacyo waxaana la xaqiijiyey inay u dhimatay neefqabad. Arrintaas waxay markii hore u muuqatay dil ka dhashay khilaaf ama xiriir gaar ah. Muuqaalka CCTV-gii aan hore u arkaynay wuxuu baaritaanka ku xiray nin lagu magacaabo Rudolf. Markaad eegto sawirada Rudolf waxaad arkaysaa inuu leeyahay dhoola cadeyn la mid ah CCTV-ga. Laakiin dhibka ma uusan ahayn in sawirada ku dhoola cadeeyo. Waxaa dadka yaabgeliyey wuxuu ahaa qaabka dhoola cadeyntiisa. Dadku waxay Rudolf u yaqaaneen qof wanaagsan oo degan. Wuxuu ahaa masiixi kaniisad taga. Xitaa wuxuu ahaa baadari. Lama arki jirin inuu yahay qof rabshad badan. Wuxuu sidoo kale ahaa la taliye la shaqeeya carruurta baahiyaha gaarka ah qaba. Dadkuna talo iyo taageero ay ugu imaan jireen. Waxayna jeclaayeen inay joogaan agtiisa. Wuxuu ahaa qof ay dadka ku kalsoonaayeen. Waxaa tan ina baraysaa qofka muuqaal aan wanaagsan inuusan mar walba sidaas ahayn. Sidaas darteed qof walba si buuxda
buuxda ah u aaminin marka ugu horeysa. anigu qofku ugu habboon mi inaan ka hadlo arrintaani sababtoo ah marar badan aan aqoon ayaan la kulmay xitaa maalintii ugu horeysay aan guryahooda tegey. runtii xitaa mararka qaar dadka si fudud ayaan ula qabsadaa. taasina waa dabeecadda gaarka ah ee anigaan leeyahay. waxaa jiray xilligii iskuulka waxaan bartay koox dad ah waxayna u muuqdeen dad wanaagsan wax walbana caadi ayay ahaayeen. sidaas darteed waan israacnay waqti fiican ayaan lasoo qaatay xitaa waan isla soo cunteen oo waan sheekaysanay. waxaan moodayay in wax walba ay caadi yihiin oo aan si fiican isku fahamnay. laakiin maalin dhaweed xitaa mid ka mid ah raggaas aan mar kale xasuustay hore aan gurigiisa ka tegey casho ayaan la soo cunay isagii saaxiibadiisa waqti fiicanna waan la soo qaatay. maantood ayaan la joogay laakiin mid ka mid ah raggaas ayaa markii dambe gabadh si joogta u dabagalay. sida uu ii sheegay ninkani wuxuu iska jecel yahay gabdhaha. sidaas darteed ninkaas saaxiibkayga ahna midaas waan ka waaniyey. laakiin aan taas iska dhaafno mawduuca ayaan ka yar baxay. sorry saaxiib. waxaan rabay oo keliya inaan idiin xasuusiyo in qof banaanka ka muuqda inuu yahay qof wanaagsan oo la aamini karo uusan mar walba sidaas ahayn. taasi waa sida dadka Rudolf u yaqaaneen. waxay u arki jireen qof degan wanaagsan oo lala joogitaan fiican leh. Rudolf wuxuu bartay gabadh ma ahayn lamaane balse waxay ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow. isla baashaali jireen, kaniisada ay isla tegi jireen, way wada shaqayn jireen, sidoo kalena qadada iyo cashada way isla wada cuni jireen. mar walba ay wada hadli jireen, telefoon iyo fariimo ay si joogto ah isugu diri jireen. gabadhaasi magaceeda waxaa lagu sheegay Aji ama Aja. dadku waxay Rudolf u yaqaaneen qof sameeya waxyaabaha baraha bulshada la soo dhigo lahaa podcast muuqaal ayuu samayn jiray. dadka ayaana jeclaa sheekadiisa iyo joogitaankiisa. wuxuu dad kala wadaagi jiray muuqaalo badan waxaana la moodayay inuu yahay qof faraxsan oo dadka jecel. laakiin wax aan la ogeyn ayaa sanado badan maskaxdiisa ka dhex socday. dadkuna ma aysan garanayn wax uu qarinayay. markasta oo ay dadka la kulmaana wuu dhoola-cadeyn jiray, wax walbana caadi ayuu ogaan jiray. wuxuu aad uga fiicnaa inuu qariyo wax ka socda gudihiisa. qofna uma sheegi jirin waxa ku jira maskaxdiisa, wax walbana wuxuu kuysan jiray naftiisa. yacni wuxuu ahaa qof xakameeya naftiisa. laakiin dadku waxay bilaabeen inay Rudolf ka dareemaan arrin yaab. ma og tahay qof aan weligiis xanaaqin xitaa markay jirto sabab cad oo uu u xanaaqo. tusaale ahaan haddii si kama ama si ulakaca biyo lagu daadiyo waxaad filan lahayd inuu xanaaqo, laakiin isaga waxa uu iska ahaa qof degan oo dhoola cadeynaya haddana aan xanaaqayn. isla markiiba wuxuu ka gudbi jiray xaaladda isagoo aan si weyn u muujinaynin dareenkiisa. qof sidaas oo dhan u degan wuxuu mararka qaar dadka gelin karaa cabsi sababtoo ah markuu ugu dambeyn xanaaqo waxaa laga yaabaa inay noqoto xaalad aan caadi ahayn. waxa uga cabsida badnaa waa inaadan hore u arag dhinacaas qofka laga arko waxay noqon kartaa waa cabsi leh. Rudolf weligiis muran ma geli jirin mana xanaaqi jirin mana codeeyan jirin, wuxuuna inta badan dareenkiisa ku hen jiray gudaha. ayaana dadka dhigtay inuu arkaan qof aad u degan oo wanaagsan. dadka qaar waxay aaminsanaayeen in haddii Rudolf si dhab ah u xanaaqo ay xaaladdu noqon karto mid halis ah. laakiin Rudolf wuxuu lahaa qof khilaaf kala dhexeeyay. wuxuu la kulmay nin ay markii hore saaxiibo ahaayeen, markii dambe kala fogaaday kadib markuu dhex maray isfaham la'aan. murankoodana muusan ahayn mid weyn balse xiriirkooda uu dhammaaday. Rudolfna aad buu uga carooday ninkan. magaciisana waxaa lagu sheegay Hitchman ama wax u dhow magacaad. xasuuso gabadhii aan hore usoo sheegnay Ija iyo saaxiibo kale oo Rudolf lahaa ayaa marar badan la kulmi jiray ninka lagu magacaabo Rudolfna aad buu uga xumaaday markuu arkay labadiis saaxiib oo isagu u dhawaa la kulmaya ama la socda Hitchman. wuxuuna ninkan u qabay nacayb xoogan, laakiin si toosa saaxiibadiisa ugama uusan sheegin inay Hitchman ka fogaadaan ama ay kala doortaan isaga iyo Hitchman. waxay u muuqataa arrin yar, laakiin marka la eego wixii dambe ee dhacay waxaa muuqata in khilaafku uu sii xoogeysanayay. halkaas ay arrintu ka bilaabatay inay si dhab ah u xumaato iyadoo Rudolf uu bilaabay inuu yeesho fikrada aad saaxiibadiisna waxay ogaadeen in Rudolf si weyn u neceb yahay Hitchman. labada saaxiib way ogaadeen arrintaas, laakiin haddana waxay sii wataanba inay la kulmaan Hitchman. Rudolf wuxuu naftiisa ku yidhi qorshe aan samaynayaa arrintana waan soo afjarayaa. wuxuu ahaa inuu marka hore dilo Hitchman kadibna uu beegsado saaxiibtii Shinta ugu dambeynna Ija. sidaas ayuu qorshaha u kala hormariyey balse wuxuu ku fikirayay sida uu mid ugu fulin lahaa. wuxuu waqti ku qaatay qorsheynta arrintaas. intuu qorshaha waday wuxuu weli si caadi u dhaqmi jiray labada gabdhood isagoo la sheekaysanaya oo waqti la qaadanaya. labada gabdhood waxay u arkeen inuu yahay qof wanaagsan oo adab leh saaxiibtinimadan ku fiican. laakiin dhab ahaantii sida sheekadu sheegtay dhoola-cadeyntaas waxay qarinaysay qorshe aad u xun. iyagu waxba kamaysan ogeyn waxa uu maskaxda ku hayay. Rudolf wuxuu markaas bilaabay inuu ka fikiro talaabada ugu horeysa ee qorshihiisa wuxuu ahaa inuu fariin u diro qof ka mid ah ehelka Hitchman oo la sheegay inuu ahaa walaalkiisa ka yar. Instagramka fariin ugu diray walaalka ka yar ee Hitchman isagoo ku xarbaa Hitchman inay meel gaar ah ugu sameeyo lama filan u sheegi karto ma yeeri kartaa inuu yimaado goobta. laakiin walaalkii fariinta uu iska diray sidaas darteed qorshihiisa wuu fashilmay. Rudolf wuxuu markaas u muuqday inuu go'aansaday inuu arrintiisa dhab ah u sii wado balse dhibaato ayaa soo baxday. Hitchman iyo qof kale oo uu beegsanayay ayaa dalka ka baxay, midna Baali ayuu aaday kan kalena meel kale ayuu aaday. sidaas darteed labadoodaba Indonesia bay ka maqnaayeen. qofka dalka ku haray kaliya wuxuu ahaa Ija. waxay ahayd qofkii ugu dambeeyay ee ku jiray qorshihiisa balse hadda waxay noqotay qofka ugu horeeya ee uu beegsado maadaama ay iyadu dalka joogtay. baariyaashu waxay sheegeen in markii hore isku dayay inuu qof kale u raadiyo inuu hawsha u qabto isagoo lacag siinaya, laakiin ma uusan helin qof uu ku kalsoonaan karo. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu isagu arrinta sameeyo. Ijana si weyn ayuu u kalsoonaatay Rudolf. labadoodabana waxay is weyn ugu shaqayn jireen arrimaha
baraha bulshada yani waxay ahayn dad soo jeediya podcastyada fariimo ay isku diri jireen way iswici jireen sidoo kalena casho ay wada cuni jireen isla markaana waqti badan way wada qaadan jireen mar walbana wada socon jireen wax walbana si wada jir ay wada qaban jireen Ija si buuxda ay ugu kalsoonayd Riddle sidaas darteedna haddii uu si fudud ay u imaanaysaa iyada taasina waxay u sahashayba inuu fuliyo qorshihiisa markii uu go'aansaday inuu arrintaas sameeyo hoteelka waxa uu ka qabsaday qol wanaag ma uusan dooran meel cidla ah sida Ken ama meel fog oo aan dad joogin wuxuu go'aansaday inuu falkaasi ku sameeyo hoteelkaasi ayaa wuxuu bilaabay inuu raadiyo hoteelka habboon isagoo eegaya meelaha CCTV-yadu yaalaan wuxuuna doonayay inuu helo hotel aan lahayn kaamirado badan laakiin hotel aan CCTV lahayn way adkeed in la helo ugu dambeyn wuxuu helay kaamirado yar la balse qolalkii oo dhan waa la wada qabsaday sidaas darteed hoteelka ayuu raadiyay ugu dambeyntiina wuxuu helay meel ku habboon oo qolka qabsaday wuxuu xiriiray Ija Riddle Ija wuxuu ku yiri ma iga caawin kartaa muuqaal xayeysiisa oo aan u sameeyno baraha bulshada Ija waxay ku jawaabtay haa dabcan waan ka caawin karaa Riddle wuxuu u diray ciwaanka hoteelka Ijana way timid sida sheekadu sheegtay go'aankaas wuxuu noqday qalad weyn Riddle wuxuu sheegay inuu sameeyay muuqaal podcast oo ay ku jirto muuqaal afduub ah wuxuu ku yiri inuu rabay inuu muuqaal ku sameeyo isagoo si ku meel gaar ah u xiraa si ay daawadayaashu u fahmaan fikradda muuqaal waxa la sheegay inuu qalabkiisa iibsanay intii Ija soo socotay waxa sidoo kale la rumaysan yahay inay meel kale ku hulkulmeen kahor intaysan imaan hoteelka CCTV waxa ka muuqda Riddle oo wata boorsadii buluuga ah wuxuuna riixay badhanka wiishka boorsadana waxa ku jira qalabkii uu diyaariyay muuqaalka labadooda waxay shugayeen wiishka eegoo qarsaday wajiyada muuqaalka laga arki karo labadaba waxay xirnaayeen mask waxay ahayd qiyaastii 3 sano ka hor laakiin CCTV-ga waxa ka muuqda arrin xiiso leh oo wax badan laga fahmi karo ma joojin karin dhaqdhaqaaqa wuu soo socday oo jirkiisa si joogto ah ayuu dhaqdhaqaajinayay halka Ija ay si degan u fadhiyay wax cabsi amaysan qabin sababtoo ah ma ogin waxa socda laakiin isaga wuxuu muuqday qof aan hal meel ku naagaan karin la weydiin lahaa sababtu soo socdayna wuxuu si fudud u oran lahaa kaadi ay hayso dadka qaar markay kaadi qabato waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqaasi oo kale laakiin wax ugu yaab badnaa waxay ahayd dholacadeyntiisa isla dholacadeyntii aan hore ugu aragnay CCTV-ga wiishka ayaa mar kale buuqanaysay markii uu wiishka xirmayna waxaaba si koray dhaqdhaqaaqiisa markii hore marab dhinac ayuu aaday xitaa wejigiisa wuxuu ku tirtirayay dhididka imaanaya dibna wuxuu bilaabay marab dhinac inuu u jeesto uuna sameeyo dhaqdhaqaaqyo badan isagoo u muuqday qof aan xakameyn karin dhaqdhaqaaqiisana wuxuu ahaa mid aad u yaab badan waxaan laga fahmi karaa in qof walba uu si isku mid ah uga falcelin xaaladaha ka qarwe deganyiin qaarna sidaas ma Riddle wuxuu u muuqday qof aad u kacsan oo aan si fudud isu dejin labadooda waxay u dhaqaaqeen dhanka ay qolka kaasoo ku yaalay dabaqa 18 halkaas ay xaaladu si weyn isugu dartay intan ay dhacday ka hor ama kadib dilka balse Riddle wuxuu u baaday wax uu ku qaado jirka sidaas darteedna wuxuu aaday dukaan wuxuu ka soo iibsaday dambiil gaduud ah kadibna hoteelka ayuu ku soo laabtay oo dabaq sare ayuu qaaday ama dabaq sare ayuu aaday arrintaas waxay ahayd wax aan caadi ahayn maadaama dambiil noocaas hotel lagu arko ay dhif tahay gaar ahaan dabaqa sare markii Ija markii ugu horeysay soo gashay qolka Riddle wuxuu xiray albaabka kadib waxay ka wada hadleen waxa ay sameyn doonaan wuxuu diyaariyay kamaradiisa weliba isagoo iska dhigay inuu duubayo muuqaal riixay badhanka duubista laakiin dhabaantii ma uusan bilaabin duubista waxay moodaysay in kamarada duubayso Riddle wuxuu u sheegay in marka hore ay sameeyaan tababar sidaas ayana yani labadooduba sidaas ay sameeyeen tababarka ku jireen Riddle wuxuu hubiyay in xargoosi adag u qabtaan gacmaheeda iyo lugaha si aysan si fudud ugu bixi karin kii hubiyay in qorshihiisa uu shaqeynayo uu furay wuxuuna ku yiri hadda diyaar ayaan ahay hadii ay meesheedii dhigay kadibna wuxuu bilaabay muuqaalka markaan dhaqankiis aad ayuu isu bedelay si xooggan waa uu u dhaqmay iyadoo Ija ay ka codsanaysay inuu taxaddo wuu xiray kadibna dhulka ayuu ku riixay halkaas ay Ija ka dareentay in wax walba ay si qaldan u socdaan waxay ogaatay in xaaladdu aysan ahayn sida ay filaysay sidaas darteedna waa ay la dooday Riddle ma uu rabay inuu dhageysto hadalkeeda wuxuu ku yiri inay aamusto kadibna wejiga ayuu ku dharbaaxay Ija way aamustay maadaama aysan awoodin inay iska caabiso Riddle wuxuu la cadeeyay dhidid wejigiisana uu iska tirtirayay yani wejigiisa dhididka ka socday kadibna wuxuu bilaabay inuu iska tirtiro markaas ayuu wuxuu arkay telefoonkeeda dhinacaas kale yaala wuu soo qabtay markaas wuxuu ka codsaday inay u sheegto nambarka pinka ama Ija si fudud ay ugu sheegtay passwordka wuxuuna isticmaalay telefoonka kadibna telefoonkeeda ayuu lacag kala baxay qiyaastii gaaraysa 1200 kadibna wuxuu sheegay inuu wiil wax kale uga baahan yahay wuxuuna ku yiri inuu waalidkeed wacayo hadii ay qayliso inuu dili doono wuxuu ka amray inay si degan ula hadasho waalidkeed isla markaana ka codsato inay akoonkeeda ugu soo daraan 1200 oo kale wuxuu waalidkii welibana isagoo telefoonka afkeedu dhaweynaya si ula hadasho waalidkeed Ija si caadi ah ula hadashay waalidkeed waalidkiin wax walba si caadi ah malin lacagtina ugu soo daray Ija markii waalidka lacagta ka codsanaysa codkeeda uu gariiray waalidku wax shaki ah kama aysan qaadin maadaama isku dayaysay inay si degan ula hadasho arrintan waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay qoyska iyo dadka ku dhow in ay yeeshaan erayo sir oo gaar ah qof eraygaas ku yiraahdo waxay u dhigantaa inuu u baahan yahay gargaar ku dhow waxay sidoo kale kula wadaagi karaan goobta ay joogto si ay si degan ku caawiyaan hadii loo baahdo qorshii Riddle wuxuu shaqeeyay lacagtiin waxay ku dhacday akoonkeeda lacagtii ugu horeysay 1200 wuxuu si toos ah ugu diray akoonka xaaskiisa ninkan wuxuu lahaa xaas iyadoo ooyay ninkan waxyaabaha uu qarinayo waxay isla noolaayeen muddo fara badan adigu baad ogtaa qof aad
in badan isla wada nooshiin marnaba kama shakin doontid yacni ma taqaanid waxyaabaha uu qarinayo xitaa mararka qaar waxaa laga yaabaa qof aad umaleynayso inaad taqaano si fiican inuu leeyahay waxyaaba kale yacni dabeecado kale aadan weligaa xitaa arki qaar waxay sidoo kale si fiican u qarin karaan waxyaabaha ay gudaha ka dareemayaan xitaa marka ay muddo dheer kula nool yihiin waxay dadka tusan keliya waxay rabaan inaad adiga aragto taasina mararka qaar adkaan kartaa in la ogaado qofkaas shakhsiyadiisa qaar waxay si weyn u qarin karaan xanaaq ama murugo gudaha ilaa ay xaaladdu meel aad u xun gaarto laakiin aan kusoo laabano qolka hoteelka ija weli way nooleed dilkuna weli ma uusan markaas ay waxay usoo dhaqaaqday dhankiisa welibana iyadoo eegaysa ija weli way hadlaysay iyadoo telefoonka haysata oo Rudolf ka baryaysa inuusan sii wadin wax uu qorsheynayay Rudolf markaas wuxuu soo qaatay cajaladii wuxuu afka geliyay iyada si aysan u hadlin way aamustay iyadoo ka baqaysa inay isaga ka xanaajiso Rudolf wuu ka fogaaday meel ayuu fadhiistay welibana isagoo daaqada ka eegaya banaanka yacni markuu meeshaas fadhiisanayay wuxuu rabay inuu ka fikiro talaabada xigta oo uu sameyn lahaa markaas wuxuu isweydiiyey inuu dilo iyo inuu isku dayo isagoo isku dayaya inuu go'aan ka gaaro wax uu sameyn doono Rudolf wuxuu ija weydiiyey haddii aan hadda ku sii daayo oo aan gaariga wada raacno ma qaylin lahayd ija markaas waxay ku jawaabtay inaysan u sheegi doonin cidna laakiin Rudolf ma uusan rumaysan hadalkaas wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in markuu sii daayo ay booliisku u sheegi doonto wixii dhacay sina isagii maskaxdiisa ugu muuqatay sabab macquul ah maadaama uu horay u dareemayay saaxiibadiis inay qiyaameen sababtu ija u beegsanayn waxay ahayd inuu ka carooday xiriirka ay la lahayd ninkii uu necbaa sidaas darteedna su-aashaasi jawaabtiisa waxay sii kordheen xanaaqiisa inkastoo ija ay si caadi ah uga jawaabtay xitaa su-aashaas lafteedu waxay ahayd mid khatar ah sababtoo ah jawaab kastaa waxay u keeni kartay dhibaato haddii ay tiraahdo haa wuxuu u qaadan lahaa inay rabto inay baxsod kadibna u sheegto booliiska haddii ay tiraahdo mayana haddana weli ma uusan aaminin lahayn sidaas darteed ma jirin jawaab saaca waxaa laga yaabaa inay ka fiicnaan lahayd inay tiraahdo maxaad rabtaa inaan sameeyo mararka qaar xaaladaha noocaas ah jawaab fudud oo ah ha ama maya waxayba xaaladaha ka dhigi kartaa mid kasii waxa ugu muhiimsan ayaa waxay tahay xaaladdu inay ahayd mid xasaasi ah jawaab kasta oo ay bixinaysayna saameyn ku yeelan kartay wixii xigay inkastoo waxaas lahaa waxaa laga yaabaa inuu labadan gabdhood midkood uu dareen gaar ah u qabay sidaas darteed xaaladaas waxaa laga yaabaa in hadal degan oo naxariis leh uu xaalada yar dejin lahaa laga yaabaa haddii ay si dabacsan u hadasho uu dhoola cadayso oo isku daydo inay dejiso caadi noqon lahaa laakiin haddii runta la sheego mararka qaar qof aad saaxiib dhow tihiin wuxuu qarin karaa dareen aadan ogeyn kaba soo qaad khafiifo ayaad saaxiibo dhow tihiin weligaan ma aadan arkin isagoo xanaaqsan haddaba waxaad ogaataa khafiifo inuu kaa qarinayo dareen kale dareenkaasi waadan adiga ogin xitaa wuxuu gaarsiin karaa heera uu adiga ku dilo hayee iska ka ilaali dad badan ayaa umalayn kara in saaxiibkood uusan weligiistaas u fikirayn laakiin qofka gudihiisa waxa ka socda lama ogaan karo waxaaba dhici karta inuu qarsanayo dareen oo uuna sugayo waqtiga uu muujin lahaa si kastaba ha ahaatee xaaladani wax walba waxay noqdeen kuwa aad u halis ah mana jirin wax damaanad ah oo sheegaya in hadal kale wax bedeli lahaa ija waxay ku jirtay xaalad nafteeda halis ay ku jirto sidaas darteed waxa ugu muhiimsan in isku daydo inay xaalad dejiso oo ay fursad kasta oo badbaado ah ka faa'iidaysato runtii ma garanayno waxa dhici lahaa haddii qaab kale oo la hadli lahayd laakiin Rudolf wuxuu gaaray heer masiirkiis uu noqdo mid aad u xun waxaaba la sheegay masiirkiis awgii inuu gaaray heer uu rabo in uu dilo taas waxay muujinaysaa sida khatarta ah ee xaaladdu ay noqotay ija waxay ahayd qof si fiican u yaqaan Rudolf sidaas darteed waxaa laga yaabaa in ay iyadu si ka fiican qof kasta u fahmi kartay wax dejin kara ma garanayno wax ija ay waqtigaas oran kartay laakiin waxaa laga yaabaa inay isku dayi kartay in ay hadalka sii wado si ay u dejiso xaaladda laakiin jawaabteedu waxay Rudolf kasii xumeysay shaki uu qabay waxaana muuqataba inuu si weyn u xanaaqiis ayaa sii kordhay ilaa uu gadaasheeda istaagay oo uu neefta ka qabtay markii uu xaqiijiyay inaysan neefsanayn wuxuu soo qaatay boorso buluug ah oo caag ah ma aysan ahayn boorsadii buluug ahayd ee CCTV-ga lagu arkay wuxuu isticmaalay boorsadaas si uu jirkeeda ugu markaas ayuu isku dayay inuu si fiican ugu duubo boorsadaas oo qayb muhiim ah ka ahayd qorshihiisa sidoo kale wuxuu jirkeeda ku duubay bacaag ah kadibna dambiish ayuu geliyey kadibna wuxuu soo qaatay barkimooyinka cadaanka ee hoteelka kadibna wuxuu ugu daboolay dusha markaas ayuuna boorsadii buluugga dusha ka saaray halkaas ayay ahayd markii CCTV-ga lagu arkay isagoo siyaab leh u dhoola cadaynaya waxaa jiri kara laba sababood oo sidaas ugu dhoola cadeeyey mid waxay noqon kartaa inuu ku faraxsanaa wixii uu sameeyey ama waxaa laga yaabaa in dhoola cadayntiisa aan caadiga ahayn ay ahayd wax uu si dabiici ah u lahaa dhoola cadayntiisa waxay u muuqatay mid aan si dhab ah u muuqanayn taasina waxay dadka siin kartaa dareen aan raaxo lahayn inaad eegto sawiradiisii hore waxaad arkaysaa inuu marar badan lahaa dhoola cadeen noocaas ah laakiin aniga waxay la tahay inuu isku dayo inuu iska dhigo qof caadiga ah isagoo dhoola cadeynaya si uu u qariyo waxyaabaha ka socda gudihiisa waxaa laga yaabaa in dhoola cadeyntaas ay ahayd isku day uu ku qarinayay xaaladaha dhab waxaan hore u aragnay inuu si fudud u degnaan karin isagoo CCTV ku jiray oo mar walba dhaqdhaqaaqaya dhoola cadeyntiisa aad bay u weynayd taasi oo ka dhigtay mid aan caadi ahayn waxaa laga yaabaa inuu isagu arkayay dhoola cadeyn caadi ah oo salaam ah laakiin
xaqiiqdu waxay ahayd inuu qof dilay halka dadka kale ee meesha joogay aysan waxba ka ogeyn. Wuxuu meydkii u qaaday gurigiisa wuxuuna maray wadadii geedaha labada dhinac ay ku lahaayeen. Markii uu soo raacay gaariga ugu dambeyn meydkii waxa uu tagay dhinaca weyn ee wadada. Xitaa uma muuqan inuu si weyn wax u qarinayo, wuxuu ula dhaqmay sidii qof meesha wax iska dhigay oo iskaga dhaqaaqay oo kale. Laakiin waxaa jirta arrin muhiim ah, meesha uu meydka dhigay waxay ahayd meel dadka deegaanka qashinka ku daadiyaan. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa inuu maleynayo meydka inuu ku dhex qarsoomi doono meeshaas. Halkan ayay sheekadu ku noqonaysaa mid xiiso badan, laakiin marka hore aan xasuusano lacagtii uu Iija ka qaatay. Lacagtii gaaraysa 1200 ee uu dirayay xaaskiisa. Wuxuu rabay in lagu fuliyo dilal kale isagoo siinaya dilayaal. Waxay sharaxaysaa sababta ugu baahnaa 1200. Wuxuu qorsheeyay lacagtaas iyo lacag kale oo uu doonayo inuu isticmaalo qof kale ee uu beegsan lahaa. Laakiin wax xiga ayaa ah arrin aan la filin. Markii la qabtay ma uusan isku dayin inuu kiiskii iska difaaco. Wuxuu baariyaas u sheegay wixii dhacay, mana uusan ka xanaaqin in la qabtay. Xitaa wuxuu u muuqday inuu ku qanacsanaa wixii uu sameeyey. Taasi waxay baariyaasha ku dhalisay inay ka fikiraan xaaladiisa maskaxeed. Waxaa laga baaray inuu yahay qof qaba dabeecadda la xiriira psychopath ama sociopath. Laakiin baaritaankii sidaas ma uusan muujin. Taasina waxay muujinaysaa sida uu muddo dheer gudaha ugu qarinayay xanaaqiisa iyo fikradiisa. Arrintan waxayna xasuusinaysaa dhacdo ka muuqata taxanaha TV-ga Cross. Haddii aadan rabin spoiler, qaybtan saaxiib waad iska dhaafi kartaa. Taxanahaas waxaa ku jira nin dilal sameeya isagoo ku dayanaya dilayaal kale oo taxane ah. Dhibanayaashiisa uu dooran jiray si ay ugu ekaadaan dadka uu bartilmaameedsanayo. Wuxuu ku samayn jiray dilal la mid ah kuwa uu ku arkay dilayaasha uu ku dayanayo. Taasi waxay ka dhigaysaa sheekada Riyuudhoof mid xasuusinaysa fikradaas, inkastoo ay yihiin laba dhacdo oo kala duwan. Taxanahaas ninku wuxuu qorsheeyay inuu dilo 11 qof. Markii uu dhameeyeyna wuxuu muuqday inuu ku qanacsanaa wixii uu sameeyey xitaa markii la qabtay. Xitaa qabashadiisa uma muuqan wax uu ka baqayay, isagoo u muuqday qof rabay in dadka ay ogaadaan wixii uu sameeyey. Wuxuuna dilal ku arkay wax uu kufaanayo isagoo doonaya inay dadka ay u arkaan qofka ka dambeeyey dhammaan dhacdooyinka. Laakiin taas lama mid ah Riyuudhoof. Taxanaha dhexdiisa ninka wuxuu dilalka u sameynayay qaab uu ugu dayanayo dilayaal kale. Wuxuu isku dayay in dhibanayaasha muuqaal ahaan uu u ekeysiiyo dilayaashii uu ku dayaday. Riyuudhoof Tobin oo sidoo kale loo yaqaan dilaagii dhoola-cadeynta waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, mana la filayo dib dambe inuu helo xorriyadiisa. Intaas ayaan waxaan kusoo gabagabeynaynaa sheekadeena maanta. Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago sheekooyin kale oo dhab ah. Saaxiib, haddii aad sheeko inuu hayso waxaan jeclaan lahaa inaad ila socodsiiso. Sidoo kale haddii aad hayso wax caddeena oo sheekada la xiriirtan waad iisoo diri kartaa. Qisada ama sheekada waxay noqon kartaa wax kasta sida afduub, dabagal, xadgudub ama dhacdo kale oo dhab ah. Waxaan jeclaan lahaa in sheekada ay la socoto caddeemo sida screenshot iyo muuqaalo sida muuqaalka loo xoojiyo loona fahmo. Haddii aad sheeko noocaas inuu hayso waxaad kala soo xiriiri kartaa Facebookgayga ama emailkayga amaba xitaa Instagramkayga adigoo qoraya keliya Khafiifo amaba descriptionka ayaan soo dhigi doonaa linkigooda. Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan sheekooyinkiina ka sameeyo muuqaalo oo aan idinla wadaago. Waxaan xitaa idinka soo dhigaya taxane gaar ah oo aan ka sheekeeyo dhacdooyinka aad iisoo dirtaan. Saaxiib, haddii aad hayso sheeko xiiso leh iisoo dir. ilaaliya naftiina walaalayaal, meel kasta aad joogtaana iska taxadara. Nabadgelyo.